waxaa maanta si rasmiya loo dhagax dhigay xadka u dhaxayn doona gobolada Murudijeex iyo Hawd waxaana loo asteeyay in maanta laga bilaabo xadka kala qaybin doona labada gobol oo noqon doono halka loo yaqaano mitirka oo ahayd xadka rasmiga ee caasimadda magaalada Hargeysa. waxaanu joognaa inaynu kala wareejino halku xadku noqonayo degmada Hargeysa iyo degmada Beligubadle ama gobolka Hawd iyo Murudijeex labadii barisaab oo barisaabka midigtayga xigaa uu taagan yahay goobtiisii barisaabka bidixdayga xigaana uu taagan yahay goobtiisii halkaas xad inoo ah waxaana ka mid noqon doona deegaanada tooska u hoos imanaya caasimadda magaalada Hargeysa Habaasweyn Qalax Darafacle Cilmi Qabad Masaajidka Maydh Wirwira iyo deegaano kale oo hoos iman doona markaasi isla magaalada Hargeysa. munaasabad ballaaran oo ay isugu yimaadeen madax kala duwan ayaa lagu qabtay xadka labada gobol waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiintii ka kala socday saddexda dhinac ee gobolada Murudijeex iyo Hawd xukuumadda dhexe oo ay ka socdeen wasiirro iyo ku-xigeenno barasaabada labadaasi gobol iyo weliba mas'uuliyiin ka tirsan dowladda hoose oo markaasi halkaasi kaga warramay faa'iidada ay leedahay in labada gobol si rasmiya loo kala xadeeyo. xafladdu maanta waxaan u joognaa waa dhagax dhiga controlka qaybin doona labada degmo ama labada gobol ee gobolka Hawd iyo gobolka Murudijeex. runtii macnaha amba xigmadda ka dambaysa halkan waxa weeye marka laga yimaado arrimaha maamul ee isriixriixa keenayay maalmihii u dambeeyay amba hadalhayntoodu socotay xigmadda ka dambaysa waxa weeye dadka halkan degani inay naga helaan adeegii dawladnimo adeegkii halkan ka fuli lahaa hadday tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaadkii hadday tahay amnigii hadday tahay wax kasta oo baahiyaadkii asaasiga ah intaa inay helaan runtii halkan waa ka ballan qaadaynaa labadeenna degmo waa iska kaashan doonaa sidii baynu insha allahu tacaala shaqada halkaasaynu kasii wadi doonaa halkanna maanta waxaa noo farxad ahun maanta inaanay dhibaatana ka taagnayn dad fara badan oo loo bahalageliyo la halka balaaya ka socota iyo controlka lama rari karo iyo deegaanka lama tagi karo waxaan is leeyahay waa qurunqunta ku guuso halkani sida dawladdu uga taliso deegaanada kale ayma halkan uga talisaa amaawirta dawladda halkan ka soo baxay anagoo fulinayna baan maanta halkan u joognaa sidaas deegaankuna ku niyad samaanaya runtii waxaan halkan uga mahadnaqayaa golaha deegaanka oo iyaguna garbaha qaarkood joogaan qaar kalena ay soo hambalyeynayeen saaka maayirka magaalada Beligubadle oo isaga laftiisa door badan ka qaatay xafladan inay dhacdo oo leeyahay adiguna aad iyo aad baad mahadsan tahay. waxaynu joognaa tuulada yar ee Habaasweyn la yiraahdo oo aan saaka xadkii loogu talagalay Beligubadle iyo gobolka Murudijeex la calaamadinayo dhinaca marka laga eego hawl culus iyo mas'uuliyad culus baan ugu soo korodhay insha Allah hadii alla yiraahdo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo sakhiro hawshaasi soo korodhay amarka dawladdu bixisay ee mitirka in la geeyo oo degmadii Hargeysa la xadeeyana beeshu waxa weeyaan in badan bay ka soo shaqaysay shaqada u badan iyaga qabtay oo qaasha iyo wasiirada iyo madaxda beeshu hawsha u badan iyaga halkan qabtay oo fuliyay waana ugu mahad celinaynaa odayaasha iyo wasiirada beelaha arab ka soo jeeda ee hawsha qabtay maanta waxa weeyaan halkan aan dhagax dhigaynaa waa mitirkii hadda halka aan joogno wixii dhanka Hargeysa ka xiga waxay saaran tahay dawladda hoose ama councilka Hargeysa caafimaad ahaan waxay ummadan u baahan tahay halkan degmadan Habaasweyn caafimaad tayo leh waa inay helaan iskuulo tayo leh waa inay helaan wadaduna waa inay halkaas soo gaadhaa dawladda hoose Hargeysa iyo dawladda dhaxana intan iyo in ka badan bay qaban kartaa. xuduudan maanta waxay ka dhaxaysana waa labadii gobol ee Hargeysa iyo Hawd waxaan filayaa sida dadka loo galiyay inay noqon doonin insha Allah inay wax soo kordhiso mooyaan ma filayo inay wax xumayso waxaan rajaynayaa dhammaantiinba insha Allah tacaala dadkan deegaanka ee dhinacan u go'ay maanta Hargeysa u go'ayna degmadii Hargeysa iyo gobolkii Hargeysa mas'uuliyadiisa isaga qaatay waana degmada Hargeysa kulli degmada Beligubadle way ka taaroon tahay gobolka laftiisa waa naga taaroon yahay
baahiya asaasigii sida ugu dhaqsaha badan la in loo dhameystiraan rajeynayna haddii la yiraahdo waxaynu fulinaynaa amarkii wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa in caasimadda dhan walba culayska laga qaado oo loo fidiyo in macquul ah oo aan waxba yeelayn gobollada kale iyo degmooyinka kale ee ku hareeraysan halkan marka Hargeysa ay raacdo hadday markii hore hawd ahayd waxaan 10 kilomitir ka badnayn weeyaan hadday Hargeysa raacdo ma aha dad ajaanib lama keenin dadkii hawd ahaaba Hargeysana dadka Hargeysa ahina hawd bay yihiin waxa dadka la geliyay oo kamida wararka huufta iyo haafta ee WhatsApp-yada iyo Facebook-yadu hagayaan waxa weeye ee aan runta iyo saxda ahayn ee aan xaqiiqada ku saleysnayn in gobolka hawd duulimaad lagu ma aha inta halka taagan ee siyaasiyiintii iyo ehlu karamkii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii deegaanka labada dhinacba iyo salaadiintii xaashe uma quurayaan hawd iyo gobolkii halganka in wax la yeelo in wax laga dhimo in wax laga nusqaamiyo wax ugu kordha mooyaan waxbana kaga nusqaami maayaan waxaan leeyahay xildhibaanada golaha deegaanka maayirka waxaan leeyahay danun baynu arkaynay gobolka inaan la gaabinin laakiin la xajeclo kale oo mayna lahayn haddii la inooga batay oo xukuumaddii iyo odayaashii waxgaradkii cuqaashii ay isku raaceen sanay dan moodeen waxaan leeyahay aan xafladana ka soo qayb galno una hoggaansanno amaamiirta aynu raacno dadka matalan TV-ga naga daawanaya dee u baahan in loo yara calaamadiyo waxa weeye dee xadku hal meel kamu durkine si siman buu u durkaya waxa durkay waa xadkii ay gobolka hawd iyo gobolka Maroodijeex wada lahaayeen ee ku dheer raaca caasimadda ayaa si dhameystiran u durkay oo siman markaa wuxuu lahaa laba kantarool ama aan saddex bay dhaahdo mid halkan uu ku beegnaaday wuxuu ahaa kan cunaqabad laga galo masalaha midna qalax buu ahaa iyo ka wadada Beligubadle Habaasweyn kii dhexe halkan darfaclay waxaan u maleynayaa inaanu shaqeynay baan u maleynayaa marka horta in xadku waa sida la durkiyay muhiimaduna waxa weeye oo dadka deegaankan iyadoo dee waddanka la wada degan yahay haddana qofka deegaankan bay maanta arrintu sii qusaysaa inta dadka deegaankan loo sheegaya waxa weeye caasimaddu way fidaysaa markay caasimaddu fidaysana dee caasimaddu fidaysa lagama hadhi karo caasimaddu dhan walba way socotaa weliba xaggan hawdka oo dhulkii masalaha ee magaalada ugu qurux badnaa ka soo maray waa dhinaca meelaha ay magaaladu ugu kobaca badan tahay weeye lagama hadhi karo markaa caasimaddu way fidaysaa sidaa ay u socoto marba halkay maraysaa caasimadda lagu salaynaya wixii xagga inaga xiga waxa loogu cadeeyay Hargeysa golaha deegaanka Beligubadle badan bay xoqeynay yiraahdeen wax halkalsana gobolka wax la yeelaya ma jirto awalba dadkan waxay u codeeyeen Hargeysa xuquuqdoodana Hargeysa ku lahaayeen maantana Hargeysa ba hoos tagayaan mid baan oran lahaa qoladii golaha deegaanka Beligubadle dee waxaan leeyahay imika idinka inoo haya berigii hore odayaalba u talin jiray ummadda intii la keenay doorashooyinkan iyo wixii la midka ahaa idinka ummadda u taliya ummadda iyo xukuumadda inaa u dhaxaysaan oo si wanaagsan isugu xidhaan baa la idinka baahan yahay saaka halkan joogna waxa u eg tahay waxaanu qaadnay laba wadaynu hayno ayaa saaka halkan yimi nin walba dhageyso laba wada halkan yimi waxa timi wadadii horumarka degmadana halkan ay degmada Habaasweyn halkan ay timi saaka waa wadadii horumarka waxa kale oo halkan yimi warqadii sharciga raacintiisa ayaa halkan timi ee xukuumadda Soomaaliland waxa weeye taasa halkan timayo la raacaya waxa weeyaan sidaas loo dhaxdhigay dadkana waxaan u sheegaynaa halka imka marka laga bilaabo kantaroolka la dhagax dhigay waa gobolka Hargeysa waxaanu dhex joognaa waa beertayadii waxaan anigu meesha u imi inaan ku wareejiyo bala saabka gobolka barta waxadkiisa ka samaysanayo dhinaca kalena ogayaha dawladda hoose ee caasimadda magaalada Hargeysa ayaa dhagax dhigay mashaariic horle oo kala duwan oo isugu jira goobo caafimaad waxbarasho iyo waliba xarumo saldhig oo markaasi loogu talagalay in dadka deegaanadaasi loo hirgeliyo bismillahir rahmaanir rahiim diir weyn ba insha Allah ta'ala Allahu akbar bismillah maanta kormeerkeena inagoo ka faa'iideysanayna waxaan soo indhaynay iskuulka hoose ee deegaankan Habaasweyn waa deegaan ballaaran oo runtii baahi weyn ay ka jirto
waxaana ahmiyad weyn noo leh inaanu arrimaha waxbarashada wax weyn ka qabanno taakuleen weyn iskuulka iyo ardayda waanu dhiiri gelinaynaa inay si fiican wax u bartaan dadka deegaankana waxaan ugu baaqaynaa inay iskuulkan baahiyaadkii loogu talagalay inuu ardaygu wax ku barto dhan uu leeyahay macallimiintii baa u joogta samuuradii baa u yaala kuraasidii baa taala iskuulkii baa dhisan inay halkan iskuulkan ay ardaydooda ku soo wada daraan ardayda aryaha raacaysa dee in la kala qaybiyo badhna xaggan lagu daro badhna gelinka dambe ay dhigtaan inaanay waxbarasho la'aan aanay dhicin dadka deegaanka halkan degan markaan baahidiisa eegno waxaanu isla garanay maamulka dowladda ee halkan maanta maraya waxaanu isla garanay inuu iskuulkan u baahan yahay deyr iyo wixii ribeerina amba dayactira ee uu iskuulku u baahan yahay intaana insha allahu tacaala halkan aanu u dhagax dhigaynaa maanta bismillahi raxmaani raxiim ilaa waa ka dhigi mid lagu turanturooda mid taabo gala ka dhig